هل كان ذلك الإنسان وحدود وأنا بورالي وحنا لقبابي عندما أردت سنتك إسدا قاسك أو توبر عيدا كاسمك البابيني إسكعابين فربضنا يسمي مدني إن حوجا واحد معنا سنة قدو مقايد ما هالكان هورسوق فرنتا انت هيستدني عون انت نستعونا هالكان بورالي إسكجريا هكذا وكادي وحبان دريمي كل وحبا غلطان هي ما حد أخبار يا سنة إن طلي وأنت ذالية وانكبحنا ميسم لما أنا كسارية هذيك استجيه إذا جيس تلاب أنا كخبو درني أنا هايو من أبود نحرقني ننسي السنو أنا تبرتوا أنا قد ماتي ما حسمينا مركب ماشان خووا كجرو تلاب waxaa ii ballan qaadaa dib wax gaaro wiilkayga noloshiisa inaad ka fikirayso wuxuu u baahdana aad siinayso waa ballan aniga garabkiisa taagan taliya maxaa kugu dhacay amarkayga ma qaadateen haa taliya amarkaa waan qaadanay waan igu faanaa maya taliya maxaad samaynaysaa noloshadaa ku qamaarin taliya waa ku barya وان بدبادنا وحير بانو هذا تلي ما يتلي سلاس حسمين وكبريا تلي مايا تلي نرى صداك وقمارين تلي مايا تلي ما حس ما يزتلي سيانو قادر بلنك وحوية صاحبك يا بلنك قادر بلنك يسمى وين الأوفية صاحبتي المدنة أدكيا أبها ين صاحبهن وانا وضع شقين جرني بس مال كميدا شل أيام قصدني أبا ملشي سوحو كواي أنا قدرتي ما كان فلك صابها وحو سمي لكن رنتا وحيتا حالة مركز وادكيت وحان هنددكي سيالة وقت والبا نلشينا وحان كورو من جرني نلشدت وينه mana baqi jirin go'aankeenana mid ayuu ahaa
kulankaaga aad aan ugu faraxsanahay Dr. Saad hawsha hadii dirtana si wanaagsan aan u soo qabtay anigaba sidoo kale ayaan ugu faraxsanahay kulankaaga Dr. waxaan rabaa seen arrimihiisa inaan kaa wareysto in waxaad ka wadaa Soomaaliya Jarsaan qofkaas adiga aad ka hadlayso aniga walaashii ayaa dhashay adiga midaas inaad ogaatid ayayd qaasihi isaga ayaa saaxiibo ahayn anigana waxaan rabaa arrimahooda inaan kaa wareysto qaasi miyaad tidhaahday runtii ninkaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad u karti badan howl walba loo dirayna waxay ahayd mid uu aqoonteeda leeyahay isaga sidaas darteed ayaa gruubkooda loogu xeshay in ay hawshaasi soo qabtaan balse markaas kadib iyaga dhibaato kale ayaa qabsatay oo meesha aysan ka filayn si markii lagu fiiriyo qof aad u wanaagsan ayaa tahay waa runtaada haddii aan aniga qof wanaagsan ahaan lahayn Bakistaan kama aan shaqayn lahayn adiga mashruuca qaasi maxaad qabiya uga tagtay aniga mashruucaas waxaan qabiya uga tagay waxa ila noqotay saaxiibkay isaga in aan khiyaanayo haddii aan mashruucaas sii wadi lahaa ma xumo laakiin haddeertaan qorshaha uu sayn wada maxaad ka leedahay wuxuu arkay qaasi projectigan in uu wax muhiim ah leeyahay markii aan arkay qaabka isaga u waday wax natiijo aniga iga muuqday ma aysan jirin waqtigaas balse waxyaabaha dhacaya ayaa waxay noqon doonaan waxyaabo lala yaabay dadka aan qancin waad saxan tahay aniga iyo aamin saaraa ikhtiyaar wax walboo dhacana aniga waxaan ku qasbanahay Zayd noloshiisa inaan ilaaliyo aniga fikirkayga sidoo doon ha noqdo Dr. Saad laakiin shaqadeeda haddii ay noqoto waan ilaashanaya hal midna waan aaminsanahay taasoo dadka hawshan hore u wadi jiray in ay ahayn dad aad u wanaagsan waajibaadkoodana gudanaya maadaama hadalkaas afkaaga aan ka maqlay waan ku faraxsanaa soo gaaraya waxay sheegayaan dabaq aad u muhiim ah inoo qabsadeen ciidamada Muslim Afraad iyagoona isla markaas halkaas ku sugan Muslim Afraad dabaq uu qabsaday runaan dad badan ayaa ku jiray dadkaasna asaga ayay u afduuban yihiin isla waqti xaadirkan
بالله والشعب كان على اليو مو باهنين شعب واحد جارن لما بعنا ماشي هتاجنت أنا تاجنت الدواخ لبعض وجود ula socotaan dabaqii dheeraa ee magaalada ku yaalay oo ay burcada qabsadeen team SS ayaa ka soo badbaadiyay dhammaantood sida u jeedaanna waxa ay wada xirteen maaskaro si aan wajigooda loo arkin shacabkana waa laga soo badbaadiyay halkaas mejalsen waxaa dhalay Temerson kabtankii hore ee dhimanay markuu dhintay kadib aabisna wuxuu la noolaa Dr. Zed cunugaas markuu aabis dhimanay wuxuu jiray 10 sano aabisa iyo Dr. Zed hal college ay wax ku soo barteen seen markuu jiray 10 sano hooyadiisa shil gaar ah ay ku dhimatay sidaas ayuu hooyadiisa ku waayay cunugaas yarka hooyadiisa aabis intaysan dhimanin koor daryeelku uu ka heli jiray markay dhinteen Dr. Zed marnaba kama heli jirin asagana sida aabis oo kale hawshan khibrad uma laha هي اسكري دكتور سياد دكتور زين مياتي دادينا لو ما باهنا أذيك إن أتمقعس إيقو واحدو أذيك إلا إيران تهدو واحد تليداي دكتور زيد بلس لو ما باهنا إن أتسيدس دادو وحالو باهنا إن أتسيدادو أبتي إيرايك لا إدريجة مدن ما فهمت ورقيقة إقرأ النقابتي وان عادي استيسدان همبالي أيام كلها أنيقة هوش أديك أتقبطي واحد مغلق إنها تكسو قوليستي نصيب حمو هوش أن خبتي ديب وما حسوستانيقة مرول وان اسكي لابا مدس وحاكي أنت مسكح يريده مد أنكو حسوسية زين أديك داد بدن أولا أفضوبتي أيات سو بدبادي سوالي با برعت فرا بدن أيات ماشا كوليسين وحيابها سودان أو أديك أتسمينيسي ما حسوستيد مياه إلا هدكم ما فاهمين لكن سيدي كل واحد مداس دادكي فراها بدناي ماشا أديك أدك سو بدباديسي أو آذان حسوسان سيداس درتي أيبي إلا تساهي إن ماشا لكوك واحد أديك لقولو كلمو قولوا واحد أوك سلامت لي وان كاقا سيدي تاي موهن وفي عنا سيداد أوكتاي بلوينكي يقدم بي وحا دعاي weeraradaasna waxaa loo adeegsaday gaaska diyaaradaha maalmihii ugu dambeeyna weeraradaas way soo laalaabanayeen
waxaan rabaa in aan ogaado dadka waday weerarkaas master sein gruubka aad rabta inaad ogaato mid ka mid ah ayaa waday ninkaasna wuxuu adeegsadaa teknolojiyadda casriga xilligan waxaan rabaa in aad ii sheegto hal cadeen qofkaas lagu ogaan karo waxa uu yahay hal mid ayaa jirto waana magaca magaceed igala hadlaysaa katara waa magac wanaagsan dadkan ma ahan dad la ogaan karo khaasatan ninkan nin la ogaan karo ma aha waa isbishaal maxay tahay qaaska aad ka hadlaysid ninkan maskaxda dadka wuu xakamayn karaa tiisna waa xakamayn karaa haddii uu u baahdo maxaa u dheer intaas ninkaas maskaxdiisa wuxuu xakamayn karaa 17 saacadood wax walbana ninkaas way u dhammaystiran yihiin run ahaantii anagana ilama ahan ninkaas inaan ka hortagi karno
yahay aqoon-yahanada sidiinoo kale ah waana dadkii ka dambeeyey weerarkii Gaza naftada halis ayay ku jirtaa ugu qof ayaan ugu dhex jiro oo arrimaheenu idil og aniga nafsad ahaantiida waxyaabahaasoo kale ma badaneeyaba haddaba naftaada ku maqani ugu soo dhawo mudane seen fariiso aniga qof haweena ma filinaynin laakiin way dhacday waxay ahaataba shaqadeen hadeertan waa inaan yaa tahay adiga magacayga waa saaraa waxaanay saynisyahanna dadka baarta saaraa hawshan waa inaan bilownaa aniga muddo 6 saacadood ayaan halkan kugu sugayay saaka waxaa la ii sheegay waqti hore in su'aalaha la ii weydiin doono laakiin sababta intaan oo dhan aad u soo daadli iima sheegin kulay waxaa taa gabar aad iyo aad u qurux badan laakiin waxay ahayd markii lagu soo tababarayay dhaqankana in wax lagaa fahansiiyo maxay tahay sababta aan meeshaan u imaanay micnahaas ifahansiiye waxaan rabaa inaan ku baaro maxaad iga baaraysaa adiga aadaad u wanaagsan tahay waad mahadsan tahay laakiin ammaanka ma wadaya arrinkan dartiisa ayaan u imaanay adiga sababta gacantaad ugu dagaalanta maxay tahay hub ayaad haysata hubka maxaad u isticmaali weyso aad isaga daysay dooqii koowaad ayaa ahaa inaan gacanta ku dagaalamo marka maxay tahay qaladka aan galay sanooyin fara badan ka hor mashruucan oo kale waxaa loo diyaariyey qaasiye ayagana way ku guuldareysteen sidaas darteed mashruucan halkaas ayaaba lagu joojiyey dibna looma furin mashruucaas waxaa ku jireen dadka halkan aad ka aragto su'aalan ku weydiiye adiga aabbaha ma xasuusataa mise ma xasuusatid weli maxaa yeelay aabbaha mishiga qaasiye isagaba qayb ayuu ka ahaa kaliya anigu waxaan ogaa aabbahay dalkan inuu u dhintay sababtuu u geeriyooday iyo qofka arrintaas ka dambeeyeyba lama soo caddeynin siday aniga ila tahay waxaa ila wanaagsan aabbaha xaqiiqadiisa inaad soo ogaato adiga ayaan kuugu talagalay waa hub casri ah qaabka rabtidna waad u isticmaali kartaa haddii aad wax tooganaysana sakin kuguma qaadanayso meel dheer ayaad wax ka tooganaysaa naqshadan dadku dhan ayaa haysta mana doonayo mudane dadkaas aniga kama tirsanaysa maahanna waana la kala gacan fududyahay sida anigoo kale waa ka helay waa naqshad fiican haddii uu hubka kaa dhammaado xitaa wuxuu ku siinaya 5 daqiiqo waxaad isku difaacdo awood ayuu leeyahay waa mid loo baahan yahay mahadsanid mudan inaan wax ku weydiiyaan rabaa waad weydiin kartaa barofesoorka arrimo ku saabsan ayaan doonayaa bahalkana darkaysa weli lama isticmaalin waxaan rabaa inaad ka shaqaysiiso dadka anagoo kale ah waxaysan jebin karin ma lahan shaqadaadan waan kuu qabanayaa waxbaa ka cabsanan adiga mahadsanid anigu waxaan rabaa arrimaha aabbahay inaan wax ka ogaado oo waxaana ka tixraacayaa sawirradan uu iga tegey wax walboo la ii sheegay waxaan rabaa ugu yaraan inaan caddeemo ka helo waddo walbaan u maro balse hadda waxaan dareemayaa aabbahe si dhab ah inaan u fahmin waana aqoonsan waaye aniga mudane seen waxaan ku sameeyey baaritaan qaybta koowaadna wuxuu eegyahay qof shacaba qaybta labaad markii la fiiriyana waa askari baaritaan dheeraada markii aan sii sameeyna kadibna waxaan ogaanay mudane seen waxyaabaan xirfad oo kaliya inaysan ka hayn ee isagu uu leeyahay dhaxal
in anaga dadka qaaska ah ee horaan baaritaanka ugu soo sameeyna xitaa waxaan ku aragnaa waxyaabo noocaana marka ay weerarka tagaan tusaalahan marka loo baahan yahay dadka inay weeraraan isla ayaga ayaaba isku soo jeedsanayeen mudana sayna arrinkaas ayaa maanta haysta arrinkaasna waa arrin anaga aan hore uga yaabnay qofka ka dambeeyna ilaa haddeertan wax aqoon uma lihin ما يمقشا وير يا نقص فولي وين النلشة دي لالسا حتى بهرا وحلو يرني كودي وكموسن دلين أوجوان كودي نلشة حفيت هذا ويسكيلالي متكلنا نكون راعي ودتكس توبر كود عادي ما حب نواي سيدان هكود دقيقين وانا اسكت ويكون صدويه لكن وحما ماركو ويكون صنغنيا وحكون صدريا عيدا مكويلاليا اوكي قيبتا جوجتا ما هنا قيبتا كلو قدو halkan feer waxba kama qaado qoriga qaado qabso hortada ii yaala iska dhiiraka dabaqa ay nimanka koriyaan dhabarka ka tuugo laakiin waa ay badan yihiin kuma filni gudaha u gal ياكو صدري ورياكو صدري ايش أنك وحان كمتنا إذا ماذا بطان من اللي جايبه قف أو حكي بدله السجع أي أنا نلص عضو أنك يو يا نيكاس يو يا مجي عيسى ايش اقوليا ناس شك يو يا قف صدري
adiga saaxiibkaaga daktar siyaad muxuu yahay marka waa booska meesha taliye dhakhtar siyaad meesha lagu afduubtay way noo dhowdahay ma adnaa annaga ciidamadeena wax walba oo aan u baahannahay waa ay inoo qabteen dhakhtar siyaadna annaga ayaa gacanta ku hayno waxaan rabnana waan ka samaysan karnaa cid wax naga qaadi kartana ma jirto halkanna maxaad u timid maxaa jira kiiskaaga maadaama gacanta aan ku hayo waan ku qasbanahay inaan ku imaado maxaa kaloo haray waxaan kaaga mahad celinayaa maadaama waqtigaaga adii ogolaatay dhabta haddii aan kaala hadla aniga waxyaabahaasoo idil ma xasuusta intaan adiga imaanno wax walba waan ogaaday tartiiba maskaxda u soo laabanaysaa adiga waxbaan baaraya ayaad leedahay laakiin 6 qofood oo anaga naga tirsan ayaan meeshaas ku weynay arrinta sidaad u malaynaysid way ka adag tahay mudanaseen aniga xitaa waxaan waayay qof aad iigu dhowaa qofkaasna wuxuu ahaa saaxiibkay wuxuu ahaa qof aniga ii qaasa si xad dhaafana wuu ii jeclaa wuxuuna ahaa qofkaas Professor Harry aabihii dhalo waxba ma uusan dhaamin mudanaseen aniga waan la socdaa mashruucan maanta faraha aan kula jirno qasaare mooyaane marnaba inaynan faa'iido ka helin laakiin waxaan rabaa inaan ku madax adeego aan ka salgaaro adigana waxaan kaaga baahanay garab inaad igu siiso diidi laheeda ama dooni laheeda aday ku jirtaa ayagu waxay la socdaan waxyaabo fara badan oo xitaa security aan ogeyn sidaas ayaan u fahmay sidaad wada ogtihiinba dadka ajnabiga ee dalkeenna imaada wax soo saar ayay ka raadiyaan see u aragtaa wax soo saarkaasay ka raadinayaan waddankeena wuxuu sameynayaa horumar ballaaran shacabkeennana waa kuwa aad u horumarsan dadka waddankeena maalgashanaya aad ayay soo badanayaan bakistaanna tiknolojiyada aad ayay ugu soo dhowaanayaan hal midaan idin weydiinayaa igana jawaaba adigoo raalliya waa kuwaana warqadihii warbixin walba ay dirtay warqadan ay ku xisan yihiin waa arrin aan ku farxay laakiin ogow waxaan u malaynayaa waxyaabo kale inoo harsan yihiin waayahay mudane waaya maanta warbixin ayaa bankigayga soo gaartay warbixintaasna waxay sheegaysaa dad inay doonayaan dalkeena inay maal gashtaan midaasna waa midaan ka soo horjeedo ma dhamaysay may xoogaha igaga dhiman halkaas fariiso maxaad baaraysaa dhigi qaybihiisaan baaraya wax meeshay u garaan adiga maskaxdaada way wanaagsan tahay weliba 100% marmarka qaarkood waxyaabo qaara waxay la noqdaan inaan ku riyoonayo kale marmar xitaa waxaan arkaa wax cajiiba maxaad aragtaa aragti oo kaliya maahan xitaa waan dareemaa waxay la mid tahay inaan goobta ku suganahay oo kale waxaan arkaa amaan dareemaa waddankoo idil inuu gubanayo dad fara badanna ay dhinacayga yaalaan weliba ayagoo meed ah laakiin waxyaabahaasoo dhan ma dhici karaan waxyaabaad hore u aragtaa sababayo sidee ahayd hooyada xaaladeedana iga horan
aad iyo aad u wanaagsan weliba geesiyada wax walbana u barirta hooyaday wax walba ayay ii samaysay way daryeeli jirtay waxbarashada xitaa way igu kontarooli jirtay aabahayna sidoo kale aad ayaan isugu faraxsaneen aabahay askari ayuu ahaa weliba askari waddankiisa daacad waa seen waxyaabihii hore u dhaca adiga wax qaladood ku leedaha ma lahan waan ogahay haddeer waxaa la gaaray wakhtigii annaga wax walba oo aan u baahannahay aan qabsan lahayn adiga xitaa haddii aad indhahayga ka fiiriso oo aad ka dhex arkaysaa qof mishiin adeegsanaya magaaladana wax walba uu isaga u baahan yahay ka samaysanayo waxaan u baahanahay xanaaqaaga inta hadda uu yahay in ka badan in aad ka dhigto waana ogahay in aad aniga i taageersan tahay balse aniga waxaan u baahanahay in aad ii taageerto sida ay dadka ii taageersan yihiin ma ogtaa waryaa halkan waxaanu nimid ma oga asagaanu malaynaa sida eeyahoo kalena waa u qaylishaa dadkana waa goostaa belaha ku dhacday kan waa aqaanaa xayawaankan midaan ku dhigi doono weligiisoo ka sheekayn doonaa aye duqa wejigaada ayaan xiisuu qabaa maaska marka hore sii balaayaana iyaga dhaqso waryaa hadalka maqal oo haddeer ma waxaad xiisaynaysaa aniga inaad wejigayga aragta adiga maxaa dhacay haddii aad kaamirada damiso qolkaana aad iskaga baxdo waxaan kuu sheegaya adiga ciqaab xun oo aadan weligaa iloobayn in aan aniga adiga kugu dhigi doono arbeen badanaa iska wada duubistaada wado balse aniga waxaan u baahanahay waqti xaadirkan adiga in aad bistooladaada la soo baxdo weliba aad gacanta iskaga dhufto abuu ma samay karo xanuun maho sugahe maxaa samee xanuun waaye aniga ima qancin midaas haddeer hal far oo keliya ayaa maqan waxaan rabaa mar labaad inaad ku dhufato mar kalaa si ay gacantoo dhan ay u wada go'do ku dhufo markaa ha ku celin waa ku tuuga waad fiicantaa waad fiicantaa wariya adiga kaalay marka kaalay adiga waxaan u baahanahay wejigaaga inaad adiga xabad aad ku dhufato weliba haddeertaan ayaad adiga istooganaysaa inaad noolaatana waa loo baahan yahay samay marka isku dhufa xabadda sanka weliba masakii dheeraa ahaa isaga dhufa sanka si balada baashaan qulucinhayaa wat maxaan wadahayaa samay waxaan kuu diray maxaan samaynahayaa okaada hadda waa ka cabsanahayaa baashu aniga wax walba ayaan samayn karaa waxyaabahan haddeer idinka aad arkaysaan ee weliba idin muuqdana ma ahan waxaan haddeer bilaabayo weligay ayaan samayn jiray haddana waan samaynayaa siduu dhakhtarsiyad u afduubtay oo kale ayuu rabaa dadka inuu afduubto ninkaas magaciisan aad buu iiga batay magac dhammaystiran ninkaas ma laha magaciisa guurida ah waa kataan
midda kale waxaan sameeyey group arrimahan ku shaqale si ay u soo ogaadaan darteed waana ku dadaalay waxaan la kulmay dhakhtarad doonaysa maskax wax kontarooleysa inay samayso waana waraystay laakiin ninkaas mashiinno u gaar ayuu samaystay wuuna ku shaqaystaa runtii mashiinkan waxaa samaystay kataan teeda kale ninka maaska dhexdeen anaga waxaan ugu shakinaynaa kataanka naftirkiis inuu yahay aniga waxaan aaminsanahay kan inuu kataan yahay ninkaas kataan la yidhaah waa la kulma aniga balse waxaan rabaa lambarra inaan idin tuso lambaradaas wuxuu rabaa dadka inuu ku dhibaateeyo ninkaas kataana dadkoo dhanna asaga ayay raacsan yihiin amarkiisay u hoggaansan yihiin wararkay u soo qaadaan hadalkiisana hadal ma soo dul saari karaan tali taliya waxaa la ii sheegay aabbahee inaad saaxiibo aheedeen mishinkii ugu dambeeyna labadiina aad isla wadeen waa runtaa aniga oo sharaftaada ilaalinaya taliya waxaan rabaa inaad ii sheegto aabbahe maxay tahay sababta uu nafsadiisa kugu horay taas ayaan maqlay aniga maxaa idinka dhexeeya xariggaas dadka lagu badbaadinayay aniga gacanta ku hay aabbaha noloshiisa wuxuu ku waayay anaga darteen dadkoo idil maxaad ka waddaa wuxuu ahaa dadka gaazi loo xil saaray borjektarka kaazi wuxuuna ahaa taliyaheenna ma taqaana howlgalkan gaaziye waxaan arkay ciidan fara badanoo horteeda ku nafbaxaya runtaa waxay tahay weerar walba oo la qaada waan badbaadaa ciidanka kalese way dhintaan laakiin taliya sabab maxay tahay ujeeddada ka dambaysa mar walba inaad adiga badbaado ma aqaan qorshahan waxaa laga damacsanaa laakiin runtaa waxay tahay aabbaha waxaa qof wanaagsan ciidanka dhanna asagaa ugu wanaagsanaa waana ku kalsoonayn balse markuu geeriyooday howlgalkan mas-uuliyad annagana laga saaray waxaana loo baahan yahay inaan dhammaystirno howlgalkan asaga mishin oo keliya miyuu ka fikiraayay hal mar xitaa ma ku weydiiyo wiilkiisa iyo xaaskiisa nolosha ay ku sugan yihiin waxaa ku soo koriyey doctor saaki wuxuuna siinisyahan caan ah haddana deggan soma saxni waad saxan tahay balse waxaa dhaba booska aabbaha cidina inaysan marnaba kuu buuxin karin waad saxan tahay laakiin waxyaaba dheeri aabbaha iiga sheeg
ayaad joogtaan taxadarkiina ha bato weerar badan qaada waxaan isku dayaa inaan ka hortago halka laga maamulayo waa qaybta midig ma aragta adiga dadkan markii hore way ka warayeen halkan inaan imaanayno qorshahoodana wayba dhammaysteen taas macquul maaha qorsheenniya kala ogaa اوكي وياي زين hortaada iska fiiri ma waxaad rabtaa teknolojiyadan oo dhan inaad isticmaasho sida aabbaha uu isticmaali jiray oo kale waad ka shalayn doontaa midaan waad fiicantahay adiga haddii aad mar meeshaan imaaday balse meeshaan waxaad ogaataa in aan geesi loogu talagelin middeeda kale adiga maxaad wax ogaataa adiga ayaaba nafsadaada aadan ogeyn waxyaabaha aad tahay maantana waa maalintii been oo dhan ay dhammaan lahayd runtii ka dambaysana aad ogaan lahayd yaysan kula noqon meeshaan meelaha lagu soo tababarto waqtiyada qofka mishinka loo soo diraayo balse adiga hawshan ilama ah mid aad ka baxsan kartid in ay tahay run ahaantii dadka ku soo dira adiga meeshaan waa ay kugu soo qaldeen xornimo miyaad u dagaalamaysaa ma waxay kula tahay inaad xornimo u dagaalamaysid dadkiinan bini'aadanka ah waqti walba waad iscadawaysataan weliba idinkoo jecel qof walba in oo qofka kale nafsada dhaafiyo balse anaga midaas dhankeena kama jirto waayo meeshan anaga waxaan doonno ayaan ka samaysanaa qofka yimaado idinkoo kalena meeshan ayaan ku dhex dilnaa ma ku fikirtay adiga raaxada iyo nolosha farxadda leh aad ku jirtay markii aad ka soo baxday weliba meeshan aad soo aaday dhibka iyo rafaadka aad la kulmaysid run ahaantii aniga waxay ila tahay qof maskaxdiisa waxyaabaha ay samaynayso aan kontarooli karin inaad tahay annaga waxaan ku dhaqannaa sharci balse adiga sharcigaas waxaa laga yaabaa in aadan ku dhaqmin ama aadan aqoonin waxyaabaha ooya iyo waxuu ku saabsan yahayba adiga hadda looma baahna sharci waxyaaba kale inaad ka fikirto sharcigaad ka hadlaysidna hal mar xitaa adoo ku dhaqmaya kuma arkin waqtigan wixii ka dambeeya adiga ciidankeyga ayaad ka mid noqonaysaa دكتور زاد لكن سيده زياد بروجكتيgiisa AK 1789 god namekiisana waa kataa wuxuuna leeyahay awooddaas oo aad iyo aad u fara badan weliba ilaa yar waxay gaarsiisantahay dadka maskaxdooda inuu isaga akhriyo weliba uu maamusho wuxuu doonana uu ka samaysto ninkaanaad arkaysaan awooddiisa iyo wax walba uu samaynayo isaga markii laga soo tago qaab maskaxiyan maaha qofkan qof jira ama qof wuxuu doono samaysan karo
ayaga haddeertan waxay isku dayayaan mudane sayn inay dilaan waxaan kaaga baahanahay waqti xadirkan la taagan inaad soo badbaadiso nafsadiisa khatar ayay ku jirtaa دكتور ما في عنتها waan fiicanahay annaga intii ay joogaan dad idinkoo kale ah weliba geesiyaal cid wax naga qaadaysa ma jirto aniga waxaan rabaa inaad adiga wax ii qabato jacaylka qiimaha uu leeyahay in aad ogaato ayaan rabaa hawsha aan kuu diraayana aad adiga si wanaagsan iigu qabato adiga waxaad tahay taliye sidaasna dhahda looma baahna adiga doctore hooyada markii ay dhimatay aniga waxaan noqday keliya laakiin waxaa hubaal ah adiga in lagu bedelay adiga xitaa qofka aad tahay isma ogid laakiin wax walba waxaa u sabab ah dhiigga adiga xididadaada ku jira adiga ciidan walba oo haddeer shaqaynaya ayaad ka fiican tahay laakiin aniga run ahaantii kuguma mashquulin sababtoo aniga danteyda iyo horumarkayga oo keliya ayaan ku mashquulsanaa looma baahna adiga inaad sidaas samayso زين زين maxaa kugu dhacay زين ila hadal زين war ila hadal زين anaga inaan dhul iska yar u dagaalano wax aan ka helayna ma ii sheegi kartaa adiga qof annaga hadalkaas wax naga dhihi karana waqti xaadirkaas ma aysan jirin dhakhtar naga mid ma ahayn waadna qiyaamta balse waxaad isaga keen dhigta kooxda waa sax aniga idinka maba idinka mid ihi دكتور سيد قعنت يا لودي مدن سين wuxuu dhahay xabsiga yaana la geenin ee hal geeyo waayilada goobta lagu xanaanay intaan anaga xogta ka helayno dadkan aad arkaysan waxa loogu talagalay howlgalkii qaydi sidaas laajiga dadkan waqti badan waa ay soo jeedi karaan waqti badan waa ay baahnaan karaan balse aniga ilaa iyo hadda waxaan dareemayaa habacsanaan ka jirta anaga dhankeena waxaan rabaa aniga in aan tijaabo ka qaado iyaga tijaabadaas markii ay maraan wax walba waa okay tooganig qofkan wuxuu awood u leeyahay nafsad ahaantiisa waxyaabaha dhacaya in uu ogaado waxyaabahan aan samaynayna ma wax qaldan yahayna barnaamijka qaasi ayaa wuxuu yahay xuduud walba sharcigeeda in la jebiyo annaga haddii aan haysanis yahan wax walba ee ku saabsan waxyaabahan annaga waan qaban karnaa balse dadka qaar ayaa waxay ogeen waxaan waxa ay yihiin annaga waa ognahay waxay yihiin war anaga haddii aan nahay ciidanka dalka waxaan laga rabaa inaan dalka difaacna maahan inaan sidaan waxyaabo nugu raadino waa qalad waxaan samaynayna adiga haddeer haddii aad dhahdo aniga wax ayaan raadinaya waxaa laga yaabaa 4 qof 5 qof ugu badnaan ilaa iyo 6 qofood in aad raadiso balse barnaamijkan aniga haddeer aan wado wuxuu inoo sahlayaa dad fara badan in aan gacanta ku dhigno bilaa amar ayaad baxday ciidamadeeda ayaad soo kaxaysatay waxaad doontana waad ku amartay hadda maxay tahay amarkaad iiga baahan tahay markii ii sheeg adiga waxaa loo baahnaa aniga horumarkan haddeer aan sameeyey in aad iigu hambaliyeyso maana hadalladan maalayacniga aad igula hadlaysid inaad igula hadasho maadaama ciidankan anigaan hogaaminayo adiga maanta wixii ka bilowda projectorkan kansal ayaad ka tahay waan kaa kansalay wax shaqaana kuma lihidid la soco waxaan haddeer adiga aan kuu sheegaya dhammaantood waa waxyaabahan oo dhan waxa ay ku bilowdeen sidan maxaad iigu adiga ayaan awood ku siinahay adiga waxaad tahay khayaanoole aniga khayaanoole maahe waxaan oo dhanna waxaa ka dambeeyay adiga familkaaga weliba waxay ahayn dadaalkayga dadkii hal bacaad lagu lista ka dhigay
aniga waxaan kuu rajaynayaa adiga indhahaaga in ay kuu kala furmaan si aad u aragto runta taagan waxa ay tahay runtee ka hadlaysaa runtan haddeer aad u jeeddo wax walbana waxay ku dhacaan daciifnimada annaga nafsadeenna aan ku beerno qofkii isku daya inuu horumarka ka shaqeeyo dadku waxay ka soo qaadayaan in uu yahay qof waalan ay maskaxdiisu fadhin qofka bini'aadanka si walba uu iskugu daya inuu been u sheego runta indhihiisa ayaa laga arkayaa runtee ka hadlaysaa runtan haddeer adiga hortaada ka muuqato runta adiga indhahaaga ka muuqato ayaa waxay tahay in aadan rabin adiga xitaa in aadan i arki karin adiga markii lagu fiiriyey qaabka noloshaada dhiiggayga matid sidaas ay tahayna aniga ayaa adiga ku soo koriyey si fiican ayaan kuu aqaanaa adiga seen adiga waxaa loo baahnaa waqti xaadirkan in aad ka fikirtid talaab balse sidii dooligiioo kale ayaad maraayaddan dhexdeeda ku dhuumanaysaa middaasi ma wanaagsana bes iga dhamaalaya aniga هاتلي اوكي واي كان اغوست لي جرتيا ilaa iyo haddeer waxaad maqli jirteen ayaa waxay ahaayeen been oo keliya balse aniga haddeer waxaan rabaa runta wax walba ay tahay in aad haddeer aragtaan runta ayaan idin sheegayaa aniga magacayga waa kataan waxayna ila tahay la kulankayga in uu xiise badan idinku haayo waana idin sugayaa ii imaada mudane wax kale ma u baahan tahay darbaa xishoonin mudane maxaa u baahan tahay kaalay fadhiiso mudane inaa fadhiista barow fadhiiso adiga aniga gacabsanina sheeko ma kaaga sheekeeyaa aniga xitaa adigoo kale waddooyinka ayaan ku soo koray aniga waddooyinkaas ayaan ku soo koray intii aan waddooyinkaas ku sugnaa ma qiyaasi kartaa dhibaatada iyo rafaadka ay aniga nolosheeda soo martay iyo inta burcad aan la kulmay waxaan arkay dilaa waxaan arkay dad wax walba dhacayo haddana way kana maalinkaas ayaana ogaadaa aniga dadkaas oo dhan in aanan waxba ka duganayn dadkaas aniga haddeer adiga aan kaaga sheekeynaayo cabsidooda rafaad walbo iyo dhibaato walba ay geysanayaan indhahayga ayaan ku arkayay sidaas ayaana iyagoo kale aniga aan u noqday wax walbana aniga ayay gacanteyda ku jiraan hal marka qaad maradaan waa wejigan aniga wejigayga dhabta ah wejigan kale aad igu arkaysid waa kii bini'aadannimada mar hore ayaana iska dhaafay wejigayga xaqiiqadana waa uu baxay adiga yaa tahay aniga iyo qofkaan ahay aniga waxaan ahay qof wakhti walba isaga rabitaankiisa oo keliya ku shaqeeyo haddii aad adiga aniga si fiican ii fiiriso wejigayga ayaad ka arkaysaa adiga indhahaaga ma aragta adiga dadka oo dhan waa ay u wada jeedaan iyagana waa ay arkaan fiiri بداية أدعو تدين معك وأستانا ما نسيسيدو عواكو سمع بيجددو النصيه معاو قليو سعيد قبصده نقدأ
maxaa kugu dhacay sunta magaceeda waxaa la yiraahdaa toxic qofka bini'aadanka jirkiisa waxay ku reebi kartaa saameyn fara badan suntan waxay jirka ku reebi kartaa saameyn fara badan isla markaasina qofka aanan ogeyn wax uu sameynayo qofka suntan loo adeegsado waxay la noqonaysaa qofka kale inuu la dagaalo asigoon waxba u geysan dadka waxay ku kalifaysaa inay laba isu qabsadaan iyagoo aan waxba ka dhixin taasi waxay dhalinaysaa in dadka si maalaayacni ah isku dagaalaan suntan qofkii loo adeegsadana ma is xakameyn karo mudane anaga waa soo ogaani kartaan meesha uu ku sugan yahay zayn aniga warbixin cusub ayaan helay ciidankana waxay isku dayeen kataan inay ka hortagaan aniga meeshan kuma xareysnan karo ninkaas keligiisna meeshaas kuma sii diin karo seen adiga meelaad aadaysi ma lahan sunta lagugu diro jirkaaga way saaqday xaaladaada ayaaba khatar ku jirto waxaana dhici karta xitaa annagoo dhan nafsaddeena khatar inaad gelisid meelaad u dhaqaaqayso ma jirto halkan ayaad joogaysaa oo xaaladdan meed iigu sii deynaysaa marka waan dagaalami karaa zayn sunta lagugu diray jirkaaga idil way saaqday inaad baxdo looma baahna waxaa dhici karta xitaa annaga nafsaddeena khatar inaad geliso zayn ha bixin زين ما مقشا زين ورقلي ديب هاون نقض وقت حاضر كن
kilaabar ayaa kula hadlaya ha cabsanin wax walba ay kontaroole yihiin هيا دقن adiga ma kala saari kartaa wajiga uu leeyahay cadowgaaga iyo midka saaxiibkaaga ma aqoonsan kartaa yah maxaad u aamusan tahay aabbahe adiga darta ayuu u dhintay sabab aabbaha aniga dartay uma dhiman ee dalka ayuu u dhintay wuxuuna ahaa askari daacada sidoo kale marnaba muusan hayn aabbaha sayn soo xusuuso ballankaad qaaday aabbaha riyadiisu waxay ahayd dalkaada inaad difaaci doonto balse sidaad u dhaqmayso ma ahayn riyada aabbaha maskaxdaada soo celi sayn waxaad taha dagaalyahaankana ma guul darraysto waa inaad guusha raadisaa tali iga fogo tali maxaa ku hadlaysaa halkan isaga tagsiin orod soo kulama hadlayo orod waan imaaday suntan dad fara badan ayay hore u soo saamaysay warbixinteedana haddeertan ayaan gacanta ku dhigay waxaan rabaa inaan xakameeyo waqti xadirkan la taagan yahay waxaan ku siinayaa qalab mashiinka xaggiisa kugu hagaayo wararkan soo gaara ayaa waxay sheegayaan sunta toxin lahaaya dad badan inay saameysay ilaa haddana waa la leeyahay wax loogu hortago aniga haddii aan dilkaaga u baahdo adiga mar hore ayaan ku dili karin balse waxaan kugu daayay ma taqaanaa aniga
waxaad adigu u ekaatay qalbi caruur khalad ayaad ku gashay inaad isii dayso adiga iyo waddankaagaba adiga iyo ciidankaagaba wax aad qaban kartaan haba yaraatee ma jirto hal askari oo geesiya markuu naga dhinto boqolaal kale oo geesiyaal ayaa soo baxayo hal askari haddii uu shahiidana boqolaal kale ayaa ciidamada qoranaysa adigana taas dhabarjab xooggan ayay kugu noqonaysaa wax walbaba inta aysan dhicin ka hor ayaad ogaa kartaa Zayn. maya aniga ma guuldaraysan kari adinkoo dhanna aniga gacanta ayaan idinku dhigayaa waxba ma iga beddelaysaan waan idin baabi'inayaa ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बास के तुम्हारा है नगमा इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का कर्ज पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का नज़्म ज़ब्त को अपना मीरकार जानो वक्त के dadkan waa dadkii nafsadooda u huray dalkooda wax walba ayay dalkooda u sameeyeen si wanaagga ay bannaanka u soo dhigaan xumaantana ay u baabi'iyaan qof kasta waa uu xun yahay balse xumaanta qof kasta waa uu qarsadaa
marka laga soo tago dad fara ku tirisa oo aan xumaanta ka xisho niyaddeena wax ku jira ayaa wax walba noo horseedi kara haddii wanaag niyaddeena uu ku jiro waan wanaagsanaanaynaa xumaan haddii niyaddeena ay ku jirtana waan xumaanaynaa geesi walba haddii uu dhintay waxaa jira geesi kale uu soo baxayo waddankanna kama dhammaanayo geesi difaaca hadalka saxda wuxuu yahay dalkan dadkii u dagaalamayo daacadda ahaa inaysan dhiman oo weli ay nool yihiin